ولي الحمد مولانا ولا بولاية شالا والهادي بإرشاده رضوا في مراده حرب التجارون وقطعكم بمجارون
جميع سلتي وما جليت جميع حزالاتي وعميت عني عباداتي وانا فسيق من شهواتي مع فانا وحيرانا والدنيا سوى الصدري كثرتنا ووطنية فما لي ملتيوني الخلاق مولانا وما بدور يا سوء وما سكتني بدور يا وهودني وما لي ملا يهويني سوى خلاق مولانا عصيت بالرزق هو الرزاق في العقيق ولكن سكت بالفسق كذوبا عاصفانا عسيت لا أمير رزقي وبرزا وبرحامي ولكن سرا وبرفزقي كذوبا ألوذ بشافع الخلق حبيبي العيد الصدقي والمنان برحمة علي يا رحمانا عند مولاه مولاه في الجنة ياه حمدت الله منصرا على قلبي مديرا حلم المرء في بلدنا إليه مكانا يغضانا مولاه بالعين وخاف له بالأمان رفوك عزني أهدنني جيلانا مولاه بالعين وأحمد له حمد إله
الله وفارق جمع أهو وردود مدائدهم فلا تركون فحاشا أن تكون جل لأمتك أرانا وردود مدائدهم فلا تركون فحاشا أن تكون جل لأمتك ومن أعداء لسالمنا وللرحمة ويرحمنا بأمرنا توبنا بنا فرجوا بنا مصلح من الأمن فلا يهدى ستورا ودا ومعنانا وعليك السلام ترحمن مع تسليم لرضوان يا أمورها لبرهان وأصحاب وإخوانا مرحبا بكم سلام كشريف في كبري في كسيوري طبعا مرحبا بكم هيا الصفقة محافظة عليك. Amen.
مشارقه بنور غلا إلا لا مشارقه بنور غلا إشارتها بالغادية هيا ماشي وحضرتها يبوه مصرفا وتغشاها ويل غادية وعيالها يقوم بذاكير في بحر شوقي سر غابريا وفي الوفا نذير لا يهقى إلا
لا
وامتنا بدينك يا إلهي وامتنا بدينك يا إلهي وأدخلنا بريق القادرين وأدخلنا بريق القادرين وامتنا بدينك يا إلهي وامتنا بدينك يا إلهي وصلك رأسك القادرين وصالك ناصرك الغالية كاسي جلبات درا كاسي جلبين بعد الدورة وأسقينا كؤوس الغادية وأسقينا كؤوس الغادية وأختموا بصلاة على محمد وأختموا بصلاة شاد النادرية أزيدة شاد النادرية وخسران ولا سحاب الدراب وخسران ولا سحاب الدراب وساداتي وكل نادرية وساداتي وكل نادرية وساداتي وكل نادرية وسادتي وكل نادرية الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا جليل وأشهد أن لا ربا غيره تنزهت مولانا فقل بانكساري بعد دوري وقربتي فسألك اللهم النصر المعجل Allah
waxaan u taagannahay waxaa waaye maaragtay sheekh mustafa alqaadi abaal uuna gashtay ayaan u gudaynaa maxaa yeelay waxaan leenahay sheekh mustafa alqaadiyow khayrkii iyo manhajkii macaanka badnaa maxabbada iyo naxariista iyo maaragtay nabadgelyada ku dhisnaa ee ka tarjumaya maqaamu lixsaan an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ood noogu soo dhiibtay khaliifkaadii qaaliga sheekh waysulqaadiri waan kaaga mahad celinaynaa inaan dhahno waan kugu ducoynayna inaan dhahno ayay ka mid tahay maxaa yeelay qofkii maaragtay waxyar ixsaan ay kuu sameeyo inaan u mahad celinno oon u ducoyno ayaa nala faray waatii xadiidku rasuulka calayh الsalatu wasalaam uu yidhi man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lahu xataa taraw annakum qad kaafa'tumuuh oo kamaa qaala sal اllau alيه wasalam haddii maaragtay qof uu idin sameeyo macruuf iyo wanaag hadduu idin sameeyo wuxuu yidhi macnaha u beegtooma oo u abaalguda haddii qof macnaha wanaag idin sameeyo qowlan wa ficlan hadduu wax ixsaan uu idin sameeyo adinkana macnaa u abaalguda haddaadan u abaalgudi karinna u ducooya ilaa aad ka aragtaan inaad maaragtay aad maanaa u abaalgudeen ilaa aad maaragtay ka aragtaan way macnaha ku celceliya ducada iyo maaragtay ammaanta aad ku ammaanaysaan arrintaas marka haddii qofku caadi wax macruufku caadi kuu faray saas lasu faray qofkii maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu xiray oo maaragtay dariiqii xabiibka sala allahu calayh wasalama kuu bayaaniyey oo kuu caddeeyey oo kugu hagi waxaa waaye waxaan ducon een oo lagu abaalgudi kara maba jirtaba culammada oo dhan sidaas waaye maqaamkii ambiyada ay taagan yihiin ambiyada ilaahay ay maalaan ilaa ayaga maaragtay annaga ayaga ambiye ma soo gaarin marka waxaa noo maal oo diinta na soo gaarsiiye waa culammada marka inaan ugu mahad celinno waa wax waajib oo na saaran waayo alculamaau warahatu alambiyaa marka waxay dhexleen waa cilmigaas iyo ku camalfalkaas iyo wanaaggaas waay marka sheekh mustafa alqaadi wuxuu ka mid ahaa marka dadkaas maaragtay dhaxalkaas nebi wax ka helay oo dadku ku tarbiyeyn jiray maxaa yeelay dhaxalkaas khaaskee qofka ilaahaysi waxaa waaye dadka la mid ma aha shuruud gaara iyo awsaaf gaar ah loogu baahan yahay oo qof walba inuu yidhahdo maarata ani waxbaan iska tarbiyeyna ma aha oo dadkaas maaragtay oo ahlu cirfaanka ah oo caarifiinta waxaa waaye kutubu tasawufku waxay u sheegeen awsaaf badan iyo shuruud badan oo qofka loogu baahan yahay wax tarbiyeynayo sheekh mustafa alqaadi marka wuxuu ka mid ahaa dadka shuruuddaas macnaha oofsaday ayuu ka mid ahaa oo culammadu waa sheegeen dadka macnaha shuruud baana loo sheegay maalan sheekhan maaragtay sheekh axmed carab almashhuur bisharnuubi sheekh axmed sharnuubi kitaabkiis taa'iyatu suluk manduumadiisa oo taa'iyatu suluk ilaa maliki lmuluk aad ugu sheekay macnaha ee maaragtay awsaafka oo loogu baahan yahay qofka murabbiga ah murshidka ah marka waxaa ka mid ah awsaafta uu sheegay matiinu اlxija yadcuu ila اrushd biاlhuda waqad jaaءanaa tashbiihuhu biاnubuwati wuxuu yidhi qofka oo maaragtay murabbiga ah wuxuu yidhi maaragtay waa matiinu اlxija waay waa maca qof oo maaragtay qawiy lcaqli waay caqligiis oo macnaha uu aad macnaha caqli xoog badan leh oo caqli badan yacni waxaa waaye ambiyada ilaahay
sifaadka u waajibay waxaa ka mid ah alfadaana afarta sifa u waajibay waxaa ka mid ahaa alfadaana tudhugi caqliga u waajibay sababtu waxaa waaye dadki waxay ku hagaan u baahan caqli ay dadka ku hagaan oo dadka ay ka soo horjeedaan ay xujadu u ogaan marka ilaahay baa caqli gaaraysiiya ambiyada sidoo kale qofka ayaga dhaxle ee maqaamkooda taaganna asina caqligaas oo kale inuu xadi waafir uu ka haysto waay yadcuu ila rushd bilhuda waxaa kaloo lagu yaqaanaa qofka caarifka oo murabbiga ah inuu maarata dadka macnaha wadada khayrka inuu dadka tusiyo oo weli si maaragtay oo kitaabka iyo sunnada ku dhisan oo maaragtay hanuun ku dhisan inuu dadka ugu yeero khayrka marka meeshan ugu goon lahay waxaa waaye wuxuu yidhi sheekha markii ugu dambeysay waqad jaa'anaa tashbiihuhu binnubuwa waxaan noo yimid yidhi haddaan nahay macshara ahli sunna waxaan noo yimid maaragtay tashbiihu waay qofkaas maaragtay oo murabbiga ku shabihidiisa binnubuwati lagu shabahay in macnaha nebinimo lagu shabahay waay oo nebinimaday matalaan oo maaragtay waxa waaye ambiyada ilaahay bay matalaan maqaamkooday taagan yihiin xagga dacwada dhishaadka iyo dadka hanuunta waay marka sheekh mustafa alqaadi marka wuxuu ahaa dadka ilaahay uu siiyey maaragtay inay maaragtay ambiyada ilaahay shabahaan oo maaragtay maqaamkoodii ay istaagaan xagga tarbiyada iyo irshaadka marka insha allah marka annagu u mahad celinayno ayaan halkan iskugu nimid oo u ducaynayno ayaa maaragtay ziyaarada intay u socotay insha allahu mashaayikh badan ayaa noo joogto sheekheena sheekh qaasim sheekh cabdiraxmaan xafidahu llahu ayaa noo joogo culamo badan hadda magaca halkan lagu soo reer sheekh weys oo dhan aan noo joogo mashaayikh badan aan noo joogto magaca halkan aan ku koobi karin ayaan insha allahu kelimada munaasabka ee halkan ku habboon ayagaa dhihi doono insha allahu marka horeysa waxaan kusoo dhoweynaha shariifkeena shariif cabdullaahi شريف أبو بكر فليتفضل مشكورا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أحبابي في الله إلهي هذا سكال سبحانه وتعالى إن قد جيداد مسلمين ومدنا محمد عليه الصلاة والسلام حدنا أقيل النصيحة السنة والجماعة نقد جي حدنا النصيب فضلي الطرق الصوفية أو ساداتك أما علماء الشبه سي أنبياء إلهي إيا أصحاب توضي إلى الله نقد جام هذا سكاله مركب موضوع قيمه شيخنا مربينا كهذا لي الله النوزياديو أمريكا الله ينوح في مشايخ دمان دتك على الزيارة أولياء إلهي وحكى الله ما زيارة أيها إلهي جان سمي مركي عبادة نبطه اللي مادين باق جعيل قاضي دتك قلبي سي إلهي قليل marka sheekhana sheekh mustafa alqaadi tarbiyadii iyo quluubtiisii ilaahay ku xirnayd iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa annaguna laku jeclaysiiyey oo ilaahay maxabadiisu qalbiga naga geliyey waxaan marka u mahad celinaynaa mashaaikhdii sabab noogu noqotay sheekhana sheekh nuur mucallim luqmaan aw sheekh cabdi cumar ilaa aw sheekh weys dheere raggii noo keenay manhajkan qiyamka ah ayagaan u mahad celinaynaa waxaan kaloo usii mahad celinaynaa dadka maanta irshaadka waday ee duruq suufiya meel walbo ay joogaan waxaan leenahay maqaamkiina allaha ziyaadiyo dadka maanta jooga dhallinyaradana waxaan kula talinayaa hanuun duruq suufiya qeyrkooda ma jiro qofka moodahayo islaamka inuu yahay oo tutukanayo keliya cibaadada salaada keliya ma ahan salaadaas munaafiqiinta nebiga la joogtayba waa ay tukanayeen way la soomayeen suubanaha calayhi salaatu wasalaam haddana ilaahay naar buu u ballan qaaday marka daahirka shareecada daahirka tawxiidka lagu dhawaaqay keliya ma ahee aduruqu suufiya waxay dhisaan arwaaxda iyo quluubtay dhisaan sidaa darteed baa hanuun wadadooda aan ahayn ma jiro marka yaan la isku lugoyn qofkii ka shakisan dariiqada ka shakisan waxaan leenahay iimaanka allah kuu soo celiyo annagana allah nagu qawiyeeyo insha allahu tacaala maxabadaas ilaahay ayaga uu siiyey oo ilaahay uu jeclaaday baan ku jeclaanay marka allah ina jeclaysiiyo ziyaartoodiina aan laazimno ducadooda aan laazimno intaasaan kusoo koobi lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu allah nu anfaco haddana insha allah waqtiga waa iska ciriiri culamo badan noo joogto oo aad u tiro badan oo ay ku habbooneed dhammaantood inaan ka beganno laakiin waqtigeeda iska ciriiri meel fogfogna daqaad daadku usii hoyna insha allahu waa iska soo gaabinaynaa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa microphone insha allah sheekheena sheekh qaasim sheekh cabdiraxmaan xafidahullah falyatafadal mashkuur alxamdulilah ilaahan ku mahadinayna ilaahay islaamkana waafajiyey ilaahay iyo rasuulkiisa maxamed inaan rumayno inaan raacno allihina waafajiyey alxamdulilah ilaahasaan ku mahadayno
ثم وحنكم هذينا إن إلهي طريقتين طريقة القادرية وكدقي في عبد القادر الجيلاني شيخين وامددينا اسكهين إلهي وكدقي مشايخين شيخين في عبد القادر طريقتين سنسوق أرسيسي أيك لهن إلهي مشايخين وكدقي وأيك عن رعني وإلهي وحكم هذين الحمد لله رب العالمين marka galabta sida aan isugu nimiday alxamdulillah waa mashaayikhda nooga sheekaysay si fiican noogu sheekaystay war kale uma baahna wax shay kalen uma baahna inaan unigana waxa waaye labadoo kalima aan idhaaho duceeyey labadaas le waaye ilaahay idinkiisa marka dariiqadeena dariiqatulqaadiriya أفضل الطرق طريقونك وبديهين والموصلة إلى الله لما أنت طرق الصوفية الطرق الموصلة إلى الله لكن أفضل الطرق الصوفية وطريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني طريقة أبوه الرئيس الطرق وطريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي مريدين تيس التربية يكون تربية إلهي توحيد كيسا إي قلبي الصافي لديسا إي بريا هيس الشرع أي هيستان إلهي إي بريا نبينا صلى الله عليه وسلم تربية وحوار شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وقدس سره وهل أسكو خلاف معها كرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني أعددي ساقرته شرف قالك أقرين وحوايا عدوة قالك أقره أنت عدوة أدرق صوفيك عدوة الشيخ عبد القادر الجيلاني هل وحكو شيء كرو حمانا مجرو كل دمان كدو أمانا لكن وحيانا كرو حوغا أي كوخادا فايان إجماعا إيه درغة الصوفية هم بدانا جرا أي رماندتك إني كل إحسان قلبك كهليان درغة الصوفية وحنانيان مشايخ ذا نعسيان وحيانا آثارتهم معالم الإسلام حين ترتلان sidaas ay kula dadaalayaan marka alxamdulillah waa ilaahay naga dhowray ilaahay san ku mahadiyayna marka dariiqadeena dariiqatu qaadiriya kor Allah u qaado khaas ahaan galabta waxaa isugu nimid sheekhayna sheekh Mustafa Alqaadi sheekh Mustafa bin Salmaan shariifayna sheekhayna murabbiyayna وسو تربية مربيالكين دمانتود شيخ جاردي سوا وحاوسو نميدي انا حصوصنو انا نوشو شيخنا واسده نوشو شيخينا شيخان يالو أمري سلام وديريو شيخ وحونو فري إحسان وين معروف وين أو نسميه واسده النبي صلى الله عليه وسلم من صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تكونوا تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم كافئتموه مركا إن شيخينا قرآن آخرينه أن دعينه ما أنا أنكم وحكا الواجب نواه معه من ذات واجب نواه مركا شيخينا الله كراد نقضه مقام كيس كور الله قاضي وقاضي يعيون كانوا كو عباد الله نقدو شيخنا شاوس القادري أساس تربية درقين وسوديري أنه كانوا شيخنا شاوس الشيخ مصطفى وسوديري سيرون وكاني أسوأ النشيئة أنه عديها أنه الشيخ يسعي وسو تربية
وشيخي مصطفى القادي وحماني ورباني وأذبني وأصغاني شرابا من كؤوس الله هي أبيات لو قدم بيسون وعدي شيخين شاوس القادري مركا ونكنا وحنا يسنا وهو يسان تويدوا مشايخين كانوا نسوق أرسيسي أو شيخ عبد الرحمن أو شيخ محمد نور كل دمان كودا وحين نقولين قال لي نقولين قال له دودر من بذكرنا الله كانوا يدعيين هنا ندعيين معنا وحكى مجران مركا أحبابت دمان تودا وحنا سفرين وحوي إلهي إنك عبسنه إلهي لك عبسه تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين وحوي الله كعبسي مشايخ وحي كون قارين مرتبة وحوي الله كعبسي marka ununkana waxaan soo dardaarmayna ilaahay inaan ka cabsano jalla subxaanahu wa tacaala mashaaikhdeena jidkeeda aan qaadno waxaan uga helayno beriga khayr iyo madad iyo nafacaad waxa waaye inaan owlaadooda runa aan naqano owlaadooda ruma waxaan ku naqan karnaa dariiqooda inaan raacno ununkana kuwa dariiqooda raacalaa naga dhigo ilaahay ka cabsadeen ilaahay caabudeen ilaahay waxideen rasuulkay rumeeyeen وكتوسلان بس وأمانين وأنا رسولك أمان إيه صلوات قومية أنا كلهين مجر ولنا نغماية محايلي إلهي حقيسة مرتبه كإمايس وإمايس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم روح وليه ولا يلسيها وحشره إنه يسوى مرتنوه محمد صلى الله عليه وسلم أصوله وحي ما يسوى وإنه الحديث اللي يا نبي صلى الله عليه وسلم حديث قول الله إنها الليلة إننا وحواي إنه النبي صلى الله عليه وسلم أمان تسي مدهي سنة بذنه قبل أركب قفك وصل بدنياهي والنبي صلى الله عليه وسلم بدنياهي قفتاس وكفي عن تبري وكم مرتبوين تايدتك وكم مرتبوين تاي hanuun dhammaantiisu waxaa nabigan la raaco marka anukan kuwa nabigoora ku salli allah naga dhow kuwa badsa allah naga dhow kuwa awliyadu ku xiraaga allah naga dhow sheekhani mustafa alqaadi sheekh mustafa alqaadi barkiisa allah noo cafiyo madadkiisa nafaxadkiisa allah noo siiyo magfuurin allah naga dhow maqbuulin allah naga dhow ilaahay idinkiis marka maasha anigoo sheekha ka wakiila waxaan idinlahay galabta banaan bixayni saanuu nagu egyahay waxaa noo dhiman cawada dhafarka haddii ilaahayda horeyso 4 saac haddii alla idmo alla bilaabayaa waxaan u malaynayaa raggiina waa joogaa waa raggeedii baasha waa joogaa aawe xaaji albi iyo raggii waa joogaa marka isa qaawo iyo aawe xilkooda marka allah u fududeeyo ilaahay idinkiisa annagana hawsheena ilaahay idinkiisa jazaakum allah khayr insha allah qadmooyinka la akhriyay khayraadki دقرياشي خيرات كل مقبول إلهي كدو انتي متقانا كدو واشي او شيخ شايلو يقرب بيس كل مراد كود إلهي سالو خير كود إلهي بطشو فاتحة